cid kasta oo in cadawga lala dagaalamo cid kasta oo cadawga in lala dagaalamo ka hor timaada maxaan u aqoonsanahay al-shabaab aan u aqoonsanahay haddii saaka cid mahad celin mudani ay jirto waxaa mudan jenaraal biixi waxaa mudan jenaraal odowaa waxaa mudan taliska xoogga dalka Soomaaliyeed adinkaana iyo marqaati furaya markii waa isognahay Soomaa ya على جيتي ورشد ما ميلو تالا ما جنرال adoo ka wakiil taliska xoogga dalka Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga waa ku mahad celinayna haddaan nahay reeriiraan taa markaa intaa uga gudbo waxbaa naga qaldamay wixii naga qaldamayna saxanaan rabaa waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo dadka propagandada iyo sheekada ujeedda cunta la dhex taagan ciidanka anu hadda hebel malihi laakiin wallaahi billaahi tallaahi waa aniga dhaartay inaan u sabrayn inaan mar dambe ugu sabrayn igu wallaahiya oo igu billaahiya igu tallaahi بأي سبب أدونك نف إيا مال باو غاليس صوما لبضا بوي قال الماشان صوما ويل قد قدودن بان سيدا حسكوشي قدد قلنا صوماي يا كوانو نفت سيون ولاين هرول لانا صوما هاد عد كستا وإن عدو قال رد قالمو cid kasta oo cadawga in lala dagaalamo ka hor timaada maxaan u aqoonsanahay al-shabaab aan u aqoonsanahay hal laga daayo istibidnimada iyo istustuska iyo ujeedada xunta oo qarmoonka hal laga daayo horay iyo gadaal horay baa loo dhow wixii dhiman rabana way dhinteen inta hadhay cidii malaka matuud galan waa dhimanaysa laakiin ma dhacayso nimaan waqti gelin anoo og waxaad u adkaysateen inaan loo adkaysan dad badan uusan u adkaysan karin anoo og duruufta aad ku shaqayseen ood ku shaqaynaysaan anoo og sida wax yihiin wax loo bedeli kara ma hayna maanta waxaan ku jiro wax inaan xiliyaheen ilaahayna tala saarano qoriga caaradiisana nimankaan isaga fogeyno wax aan ahayno alternative kale oo maanta noo furin ma jiro haddii shay cali jeeyto kaliya ku tarbaan aha maanta gabdhaha baadiyaha joogta soo ku tarbaan ma soo shabaab ku tarbaan kama cid kale dimi kama gelin ya walaalka meelaashanaysan way dhulka meelaashana dhulka u doona Soomaali Suudaneys Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaneys waa badqabka bulshadeena